Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow channelka Xamse Smart. Like iyo subscribe noo saar intaad muuqaalka aad ku daawanayso ama aad ku dhex jirto. Waxaanu ka hadli doonaa WhatsApp-ka cilad ku timid. Ciladaas oo ah qofka aad fariimaad ku dirteen ismasaxaya, sawiradaas u idaarsateen, sawirradii ismasaxaya. Sidee baan uga hortagi karaa ama sidee baan fariimahaygaasi u ilaashan karaa? Fariimahaaga waxaad u ilaashan kartaa. Hadda waxaynu geli doonaa WhatsApp-ka markaynu galno. WhatsApp-kaynu ku dul dhufan doonaa. Markaan WhatsApp-ka san ugu dhufano, hadda waa halkan iska yaala. Markaan saa soo galno, hadda waxa halkaas iga saaran aad arkataan Salma disappear message. Disappear message ayaan doonayaa inaan ka qaado, waayo qofkaad ku dhufanaysaa. Waayo qofkan waad arkaysaa hadda wax fariin oo aan isweydaarsanay ma jirto. Wax fariin oo isweydaarsanay ilaa aan wax fariin oo isweydaarsanay ma jirto. Sidaa darteed waxaad geli doontaa qofka ayaad geli doontaa profile-kiisa ama home-kiisa. Hoos bay u daadegi doontaa halka ay ku qoran tahay disappear message ee ay ka hooseeyaan labada casaanka ah ee black block iyo report oo kaliya ka hooseeya. Disappear message-kaasaad ku dhufan doontaa. Mar alla markaas ku dhufato, anigu waxay ku taagan tahay 7 days. Haddaba 90 days ku dhufan maysid. Waxaad saari doontaa calaamadda akhtarka baad ka soo qaadi doontaa 7 days ama halka kale ku taagan tahay haday 4 hours waxaad saari doontaa off ayaad saari doontaa. Saas oo off garan doontaa. Off markaad saarto waad ka gudbi doontaa. Hadda wixii ka dambeeyo qof fariimaad soo weydaarsataan oo dhan waad ugu tagaysaa haday sawir yihiin. Wixii intaa ka dambeeya waxay noo muuqda hadda Salma baashireed falaadhi yareed ma dul saarna. Falaadha yar saas uga masaxmaysaa. Kaas sidaas ayuu muuqaalkan iyo daba inaga yahay. Waxaanu kaa codsanaynaa haddii aad ka faa'iiday muuqaalkan subscribe, like labadaba noo saar. Waad mahadsantahay.